waxaa magaalada Araabi ee degmada Dambal ee dawlad deegaanka Soomaalida maanta si weyn loogu caleema saaray Caaqil Yoonis Ducaale Cabdi oo ka mid noqon doona uqaasha degmada Araabi iyo deegaanada kale ee ku xeeran iyo qaybo kamid ah bulshooyinka ku nool deegaanada kala duwan ee gobolada galbeedka Somaliland. Munaasabadani caleema saarka oo ahayd mid si heer sare loo soo qaban qaabiyay ayaa ka qabsoontay gudaha magaalada Araabi waxaana ka soo qayb galay odayaal waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahano iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee magaalada Araabi iyo kuwa degmada Dambal iyo mas'uuliyiinta gobolka City kuwaas oo dhamaantood u hambaliyay caaqilka cusub alla nooga bariyay in xilkaasi loo igmaday Ilaahay ku asturo. waxaana ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadlay isla markaana daafuray Yacquub Xasan Khayre oo ahaa gudoomiyaha gudida qabanqaabada ee munaasabadani caleema saarka. anoo sharafa oo noo karaama ah inaanu markhaati ka noqono in uu mid kamid ah jiifafka ama jiif caaqilada beesha aanu ku caleema saarayno aanu ka soo qayb galno aad iyo aad baan niga mahadcelinayaa. waxa weeye waxaan maanta u fadhinaa halkan xafladana u samaynaynaa walaalkeen Yoonis Ducaale oo maanta halkan ku caleema saarayna xafladiisii. waxa weeye aniga Yoonis waxaan ballan qaadaynaa inaan tolka isku keenno wadajir iyo walaaltinimo ka dhaxayno. marka hore waxaan u hambalyeeynaa runtii caaqil Yoonis aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa muddan hawshiisa soo wadnay. Yoonis waxaan kula dardaarmayaa runtii sidii horeba loo sheegay ummad buu talinayaa ummadaas sidii uu inoo sheegay sheekh ubaatana khilaafka deena shaqi jirin khilaaf ma marayo marka inuu ummadda isu keeno inuu habeeyo inuu mataqaana isku isaga labadaba ay kaga baxaya. waxaan leenahay Ilaahay kugu asturo xilka maanta lagu doortay waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadka waaweyn dadka yar ay ku soo horeeyaan dadkii hore qofku markuu caaqil loo doorto waxa laga yaabaa dadka waaweyn buu isku xeeraa dad badan oo dhalinyaro wax bartay oo aqoon leh oo cilmi leh oo dhaqankii wax ka yaqaana inaad caaqil isku xeerto oo nabadgelyada ka shaqeynaya insha Allah. waxaan kula dardaarmayaa inuu noqdo ninka maanta aynu ku harsan doono insha Allah. waxaan leenahay Ilaahay xilka kugu asturo. anuu waxaan leeyahay Yoonis iyo Cabdi Xaashiba kaad ka shaqeysaan dadka jaararkeena ee walaalaheena nabadooda inaad ka shaqeysaan horumarka deegaanka inaad ka shaqeysaan inaad isku xidhaan dadka iyo muxuu ahaayay bulshada. waxaan leeyahay caaqilka cusub hambaliyo in yar baan ku darayaa baahida degmada kullay weyn ognaho dawladdu way u fududahay markay hogaamo reerku yeeshaan la xisaabtankii dawladdu way u fududaanaysaa. waxaan leenahay dawladdu nabadgelyadu horta waa waxa lagu degan yahay cid kasta oo nabadgelyo ku degan tahay shacabka weynaha Araabi buu fiican xagga nabadgelyadu aad wax balaaya ma jirto laakiin aan sii xoojino gaar ahaan degmada Dambal ee wada degan dad walaalo wada degan inaan xoojino nabadgelyadu inaga waa inay naga bilaamato inaga jiif caaqilada maanta doorana waa in noqdaan dadkii isku kan xiri lahaa dadka walaalaheena meeshii khaldan nasiix lahaa wixii talo baahna maamulka degmada kala shaqeyn lahaa taa waa inay noqdaan jiif caaqilkeedu waa inuu noqdo aad baan ugu hambalyeeynaa inuu taa ka soo bixi doono waan ku ogahay. waxaan soo dhaweynayaa caaqilka ama duqbeeleedka meesha lagu caleema saaray ee Yoonis waxaan leeyahay cimrigiisa Allah raajo talada loo xil saarayna Ilaahay ku asturo. marka hore waxaan halkan hambalyo ugu soo jeedinayaa Caaqil Yoonis Ducaale. runtii aniga iyo tiimkayga anoo ku hadlaya magaca tiimkayga waxa weeye farxad doorta noo tahay waa farxadda waa arrin taariikheed weeye madal lagu caleema saarayo caaqil beeleed waa mid taariikh weeye sideedaba. isagana waxaan u rajaynayaa hawlo fara badan oo runtii hor yaalla jira aniga isagoo ka wada shaqayn doono oo nabadgelyada ugu horeyso. sidii la sheegayna ujeedada caaqiladani ma aha in ay dadka kala qaybiyaan waa inay isku soo dhaweeyaan. annagu ka dawlad ahaan iyo ka xisbi ahaan waan soo dhaweynaynaa mar walba waxaa noo fududaanaysa inaan ka shaqayno nabadgelyada iyo horumarka. ugu dambeyntiina Caaqil Yoonis Ducaale Cabdi oo halkaas ka hadlay ayaa u duceeyay bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadaasi isagoo ugu baaqay inay la shaqeeyaan ayaa waxa uu sheegay ayaan ku jawaabaynaa dhaqanka maanta
wax ka bedel baan leeyahay anigu waxaan la saaxiibayaa hadduu ilaahay yidhaahdo dadka dhallinyartaa u horeeyo da'doodu tahay 20 jir ilaa 30 jir inta u dhaxaysan la saaxiibaya waxa iga ballana inaan kuwa la saaxiibo anigu waxaan maanta kulli waan maxadoonay ducaysaan annaan duceeyo baa muhiima Allah ina barakeeyo raar Allah barakeeyo ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi lagu soo gabagabeeyay ciyaar dhaqameed lagu maamuusayo Caleema Saarka caaqilka